dagaallo dhimasho iyo dhaawac badaliyay ayaa ka dhacay gobollada ay colaaduhu ka irmaan yihiin ee galbeedka Somaliland. Maalmihii ugu dambeysayna waxa ay ahaayeen dagaalada tani kuwa deegaamo kala fog ka qarxaya iyadoo ay isku farasaarayaan beelaha Gadabiirse iyo Ciise. Waana markii ugu horeysay ee gudaha Somaliland sidoo kale beelo istilaayo daawado laga noqdo marka laga reebo ciidamada qaranka oo kala dhex galaya hadba maleeshiyaadka iyo dableyda hubeysan ee ishaleela. Waana wax xujooyin waaweyn oo hor yaalla madax dhaqameedka iyo waxgaradka Somaliland. Haddaba dagaaladaasi maxay dhimasho iyo dhaawac dhaliyeen? Ma lahayaa xal ay ku nabdaan labada deegaan ee ku wada diriraya gobollada galbeedka Somaliland. Hal qarsoon iyo hal aan yeelin Somaliland weli. iyo halka ay ka dhaceen dagaaladii ugu dambeeyay ayaynu warbixinteenan ku falaqaynaynaa. Gudaha Somaliland 9 bilood ee ugu dambeysay waxa ka socday dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelaha Gadabiirse iyo Ciise oo wada dega gobollada Sel iyo Awdal. Marar badan oo waan iyo nabadgelyo dadaal lagu bixiyay ayaanay guuleysanin ilaa iyo haatan way sii socdaan. Maalmihii ugu dambeeyay waxa jiray dagaal xiriir ah oo ka dhacaya deegaamo kala fog. Kii ugu dambeeyayna waxa uu maanta ahaa deegaamo hoos yimaada Lughaya. waxyeelooyinka la kala tirsaday iyo khasaaruhu inta uu leeyahay ayaan si rasmi ah loo ogaan karin. balse warbaahinta xogaal ilo wareedyo hoose oo u waramay ayaa sheegay in 2 qof oo dhimasho ah ay jiraan iyo dhaawac tiradiisu aanay ka badnayn 5 qof. dagaaladaasi oo in muddo ah soconayay ayaa waxa khasaarahooda hoos u dhigay maadaama oo ay deegaamadan yihiin kuwa buuraley ah. dadkuna aanay haysanin hub tiro badan oo ay khasaare badan isku gaarsiiyaan. hase ahaatee waa dagaal la sii siqaya. haddii ay fogaadaanna waxa ay noqon karaan kuwa faraha ka baxa oo isaga gudba labada gobol ee Sel iyo Awdal oo intooda badan ay haatan nabadgelyo tahay. 3 amuurood ayaana isbarbar socda marka la qiimeeyo colaadaha soo noqnoqonaya ee laga salgaari waayay kuwaasi oo u dhaxeeya laba deegaan oo walaala ah. koobaad ayaa gacmo shisheeye oo ku jira iyo siyaasad labada deegaan lagu soo dhex tuuray taasi oo ka qoto weyn arrimaha ay ku kala aragti duwan yihiin. waxaana ka adeeganaya deegaamada tan Djibouti iyo Soomaaliya iyo dawlado kale oo qarsoon kuwaasi oo aan si sax ah loo ogaan karin. waxa ay ka markhaati kacayaan colaadaha dami waayay in aanay ahayn ishayn laba deegaan oo kaliya u dhaxaysa dawladaha shisheeye hubka iyo dhaqaalaha tirada badan ku bixinaya sidii gobollada Awdal iyo Sel ay gacanta Somaliland uga bixi lahaayeen iyagoo ku yaala goob istiraatiiji ah ayna dhacaan dekedaha ugu dhow badda cas ee ay Somaliland gacanta ku hayso ayaa ah kuwa aan gabanaynin ee gulufkooda cadaystay iyadoo ay salka ku hayso talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Somaliland qaaday iyo kuwa u qorshaysan iyo damacyo dhuldoon ah oo lagu hoos qariyay. Djibouti ayaana calanka u ruxaysa hawlgallada ugu badan ka fulinaysa gobollada Awdal iyo Sel inkastoo Somaliland ay xujo weyn ku tahay sida dawlad kale hawlgallo ay ku danaysanayso dalkeeda gudihiisa uga fulin karto. qodobka labaad ayaa ah labada deegaan oo xurgufi u dhaxaysay iyo qonof uu helay qorshihii dagaal ee Somaliland lala maaganaa taasi oo la isku lisayo hal aanay Somaliland wali yeelin ayaa jira kaasi oo laga sugayo inay tallaabadiisa qaado. waana in madax dhaqameedka iyo waxgaradka Somaliland ee arrimahan oo kale wax ka qaban jiray ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan iyaga oo labada deegaan si xeerbeeti ah u dhaxgalaya meeshana laga saarayo siyaasadda iyo gacmaha shisheeye ee ku jira kuwaasi oo ay deegaamadani awood u leeyihiin in ay iyagu iska xakameeyaan balse iyaga laftooda ishayntooda ayay ka faa'iideysanayaan. sidoo kale xaaladda colaadda ee ka gabadhacleynaysa galbeedka Somaliland ayaa ah mid go'aankeedu uu ku xiran yahay ugaaska guud ee beelaha Ciise iyo ugaaska guud ee beelaha Samaroon kuwaasi oo ilaa iyo haatan aan ka wada hadlinin sidii deegaamadoodu ay nabad ugu waari lahaayeen. hadalka wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo dhawaan daboolka ka rogay in aanay khusaynin madax dhaqameedka Somaliland soohdinteeda aan ku jirin ayaa la aaminsan yahay inuu yahay talaabooyinka dabka ku sii shiday colaadaha ka aloosan gobollada galbeedka Somaliland kuwaasi oo maalinta ay ka dambayso kasii xoogaysanaya deegaamadana ay dirtoodu sii ballaaranayso. ciidamada militariga ah ee Somaliland ee gobolladaasi ku sugan ayaana ku kala dhex jira inkasta oo aanay kala xakameyn karin maadaama oo dhulkaasi uu yahay mid aad u ballaaran.